بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومد الريتش وتي ضل يدبت بيل والبو أي جوجان وانيجا دقة عيسى ظهر وحن هالكن كلا هالليا ومد الريتش وتي دمان تذبح كدبت شوجا إيو كو ضل شوجا waxa halkan maanta isoo taagay oo aan ka hadlayaa waa dhibaatada walaalkeen Fuad Yusuf Ali haysata. Fuad Yusuf Ali arintiisu imika ma bilaabmin, in badan ayay socotaa arintiisu. Intaas oo dhan ay socotana waxa aan aniga oo deeqa Ciise aan uga aamusnaa rajaan sugay, rajo ayaan qabay, rajo ayaan ka sugayay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geeli. waxa aan ka sugayay ina ka arintiisa si wanaagsan loo rido, si fiican waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegayo oo runa oo midbeeniye ku jirin ina laga cafiyo, la xal marin loo sameeyo, la isdaba qabto. isaga ayaa maanta madaxweynuhu u ah dalka hogaamiye aabo u dhaxeeya umada. waxaan halkan idinka sheegayaa umada reer Djibouti sida aad u dhantihiin, rag, dumar, wiil, gabadh, yar iyo weyn. waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayn, ayaan idin sheegayaa. waxaan idin sheegayaa inaydan gaari ka marnayn, ayaan idin sheegayaa. waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayno Fuad Yusuf Ali ayaa geesinimo idinku filan. aragti la arko geesi amba la dhandhamiyo waxa idinku filan Fuad Yusuf Ali. gaarina isku sheegi maayo way idinka buuxdaa, idinka ayay idinka buuxdaa gaari, idinka ayaa 24 saacadood dumarka reer Djibouti ay ka hadlayaan facebookyada oo dariiqyada socdaan iyaga iyo ubadku. waxaan la hadlayaa umada reer Djibouti baan la hadlayaa. degta si fiican u fura reer Djibouti. dulmiga halka aad ka arkaysaan ee 24 saacadood halka la idinka tusay waa wax la inagu itixaamayo, waa wax Ilaahay inagu itixaamayo, waa wax maalinka qiyaamaha la ina soo joojin doono, la inagu itixaami doono, la ina weydiin doono. walaalkeena ku tukanaya kaniifka ku dhex tukanaya ee kaniifka ku dhex nool waxa aynu uga hadli weynay waa la ina weydiin. ma garanayo inaad aragteen, inaad la dareenteen inta uu Fuad xiran yahay 2 jeer ayuu dalku gariiray. Djibouti 2 jeer ayuu dalku gariiray. inaan kaliya yahay iyo inay umadu ila dareentay way soo sheegi doonaan. waxana calaamado ku tusaysa in la idinka doonayo ficil inaad samaysaan. reer Djibouti hadal iyo waqtigii hunu loo baahnaa midtoona ma joogno. aniga oo deeqa Ciise Duhura waxa aan halkan aan idinka leeyahay oon maxaa la yiraahdaa idinka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo beri toole jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin Fuad Yusuf Ali oo qabri looga dhigay, kaniif looga dhigay qabri, oo noloshiisa dhimashadii ku sugayay halka. geesi kama madhidin, waan idinku calinayaa. 100 Fuad ayaa idinku jira, 100 Fuad ayaa idinku jira, 200 oo Fuad ayaa idinku jira. milyoonkeenuba waxaynu nahay wada Fuad, milyoonkeenuba waxaynu wada nahay gaari, waxaynu nahay dadka aan iskala qaadqaadin baynu nahay. imika ayaa leena soo dhaxgaliyaa waxa. laakiin waxaan halkan idinka sheegayaa dadka Fuad moodaya qabiilow ku quusta, igu quusta aniga. dadka Fuad moodaya qabiilow igu quusta aniga. xaq darradu inay jirto Djibouti cidna geedga ma qarsoona. waad ogtihiin habeenkii sida aad ii taageerteen, sida aad ii soo garab joogsateen, sida aad u muujiseen in aad ka xuntiin wixii halka ka dhacay, dareen aad ila dareemiseen. nin walba waxa godkiisa ku haysta inaad habeenka halka ka daawateen ayaa idin soo dareeriyay. taasi ayaa idin kicisay. marka maantana waa daawateen fiidiyoogii uu idin soo duubay walaalkeen. nin waliba waa inay taabato, nin waliba waa inuu halka uu ku jiro walaalkeen qofka damiir kale ee reer Djibouti uu ka murugoonaya, uu ka dhiidhiyaya walaalahayo, uu ka dhiidhiyaya. anigu waxaan goostay
aniga oo hooyo ah laba ubada leh inaan labadayda uba toddobadiisa ku daro ayaan goostay calanka aan sito waad aragtaan waa calankeeni dirayska sharafta leh aan sito waad aragtaan waa dirayskeenii waa dirayska sharaftiisii iyo karaamadii uu lahaa laga xayuubiyey weeyaan waa dirayska uu ku ciilan yahay ninka dirayska siti weeyaan waa dirayska uu ku ciilan yahay ninka sida ninka uu u sido maxaa la dhahaa shicibka ah uu ku dulman yahay weeyaan shicibku uu ku dulman yahay weeyaan ee loo soo diro afar sidaa ugu cagcagayso marka ay hadlaan marka ay yidhaahdaan waxaan doonaynaa xaqayaga waxaan doonaynaa cadaalad baan doonaynaa loogu soo diro ee lagu muquuniyo waa kani weeyaan ka kasitay uu ku dulman yahay waa kani weeyaan ka kasitay aan galoon loo biirin waa kani weeyaan kasitay qabiil loo kala qaado anigu qabiil ma nihin fu'aadna qabiil maahe waa qaran ku quuso waan idin sheegay ninkii qabiil moodayo ku quuso anigu halkan waxaan korkayga reer Djibouti idinka hortiina idinka dartiina ayaan u qaaday dirayska idinka hortiinana waxaan halkan ku dhigayaa caawa dirayska ayaan caawa halkan ku dhigayaa aniga oo deeqa ciise duhura waxaan diiday dirayska sharaftiisa ana oo ixtiraamaya oo dhowraya ilaa inta ay sharaftiisa u soo noqonayso aan laalaabto oon meel dhigto ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday ilaa inta ay shacbigu ku dulman yihiin dirayskooga aan korkayga ka dajiyo ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday inta uu ka sitay uu ku dulman yahay ayaan dhigayaa ayaan dhiganayaa dirayskaas marka waxbayaan hadalku ila tararin reer Djibouti waxaan idinka leeyahay waa milay iyo male waa milay iyo male waa milay iyo male kaca soo baxa beritoole ilaa inta aynu ka guul gaadhayno waynu karnaa boqol waxa inagu jirta dhalinyaro u idikeeya oo ninkaasi uu ugu horeeyay halkaa jiifa ee godka lagu riday waay isaga haddaad maxaa la yidhaha maqli jirteen inuu bedeli doono generaalka anigu caawa waxaan idinka leeyahay inuu madaxweynaha bedeli doono ayaan halka ka sheegaya inuu bedeli karo uu kartideedii leeyahay ayuu noo sheegay in fois encore waxa uu na tusay faybiliteega ay leedahay securityga magaaladu isaga oo godkiisii ku jira ayuu telefoon isku soo duubay inaanu security jirin halkaas ayuu idinka cadeeyay encore une fois inaanu wadankani dib habayn u baahan yahay ayuu halka idinka cadeeyay walaalahayo annagu waxaanu nahay hooyada maanta ayaynu nahay ubadkeena haddaynu u soo saari weyno mustaqbalka haddaynu u jeexi weyno hooyooyinkeenii hore waxaanu kaga duwanahay dad wax bartay baynu nahay dad wax bartay ayaynu nahay waa inaynu ubadkeena u jeexno maanta kuwii ka fikirayoon calooshooda ma nihin hooyooyinkeen waxay nagu soo korineen inay caloosheena ka fikiraan yaanu ilmahaagu gaajoon inay ka fikiraan anu ilmahayga gaajadiisa oo keliya kama fikiray waxaan ka fikirayaa avenirkiisa ayaan ka fikiraya shaqada uu qaban doonaan ka fikiraya waxaan doonayaa inuu shaqada uu qaban dooni ay noqoto tu uu ku kasbado wixii ilaahay baray iyo kartidiisa iyo raganimadiisa tu aan la riixin oo ree hebel baa tahay loo riixin ayaan doonayaa adigu haddii aad shoomeer tahay waad og tahay shaqo la-aan inaan Djibouti inay shaqo la-aantu ay ka jirto Djibouti shaqooyin in la abuuro la karayo la diidan yahay laakiin adiga oo shoomeera ayaad ku calaacalaysaa gurigaagii kaagii shaqada haystay waxa aad ku ciilan tahay shaqadaadii promotion ma heshid waa lagu jirjiraa waa lagu cadibaa nunahaasa lagu hayaa anu hadal idinku soo laakiin shucuurtayda u kacsan tahay walaalahayo aad bay u hayaa anu hadal idinku soo laakiin shucuurtayda aad bay caawa u kacsan tahay reer Djibouti aad bay u kacsan tahay walaalahayo aad bay u kacsan tahay ilaa xad waxaan rabaa inaan korkayga ka dajiyo dirayska sharafta leh ee ciziga leh ee karaamada leh ee intaaba lagu tuntay ayaan korkayga ka dajinayaa walaalahayo korkayga ayaan ka dajinayaa bisinka ayaan u qabanayaa qadarin iyo sharaf iyo wanaag iyo maamuus aanu hayo ayaan bisinka ugu qabanayaa waana karaamo ilaahay baana ku siiya ilaahay ayaa ku siiyo ibn aadani kuma siiso
ها korkayga kuma sidayo korkayga kuma sidayo ilaa ay u soo noqonayso karaamadiisii ilaa ay u soo noqonayso cizigiisii iyo sharaftiisii anigu korkayga ku sidi maayo korkayga ku sidi maayo maantana Vansejuan ilaa uu ka soo baxay halka anigu Fuad Yusuf ilaa halka ka soo baxay Vansejuan aan fiitinayay ima ahaato Djibouti ima ahaato calanka uu wiilkiisii uu ku ciilan yahay calanka uu hooyadii ay ku ciilan tahay calanka ay ku ciilan tahay uu ku ciilan yahay bayloodku wuxuu ahaa ninka lagu faano buu ahaa bayloodku wuxuu ahaa ninka la hiigsado ayuu ahaa ee adduunyada ku tartanto ayuu ahaa inagu bayloodkeennii ayaynu gudaafa dhex jeexinay bayloodkeennii ayaynu kaniif dhex jeefanay sidee inoo qabataa inama qabatataa kamana geyno madaxweynaha adeerkay waxaan ku leeyahay adeerkay Ismaaciil Cumar Geele waxaan ku leeyahay abaalkaagii deemilsays kugu ekaato abaalkaagii deemilsays baan guday maanta waxaan gudayaa abaalka shacabka reer Djibouti waxaan gudayaa abaalka walaalkay Fuad Yusuf Ali ayaan gudayaa ayaan leeyahay halka aad igeynaysana anigu diyaar baan u ahay aniga faraxsan aniga oo qoslaya aniga oo ku sheegaya inay aniga in iga badan oo iga karti badan ay ku jirto magaalada Djibouti iyo Djiboutiyaanku ay joogaan ayaan ku sheegaya aniga oo qoslayo oo faraxsan aniga oo ku faraxsan xaq aan ku hadlayo aniga oo ku faraxsan inuu Ilaahay iga garab galayo aniga oo ku faraxsan inaana guuleysan doono aan hubo ayaan kula hadlaya adeero maanta sidii aad igu soo baxdeen reer Djibouti abaalkiini ayaan gudayaa abaalkii waxaan gudayaa oo igu lahaa walaalkay Fuad Yusuf علي مدحيسو هراغو بان ليها ولا لهيو هذا انت ايدين كسي بدن مايو هذا انت ايدين كسي بدن مايو ولا لهيو عاد بان ايدين سلاميا ميل والبو اد joogtaan ballanteennuna waxay tahay libinta oon gaadhno oon insha Allah aad soo baxdaan meel walbo aad joogtaan aad soo baxdaan rag iyo dumar iyo ubad iyo dumar iyo dhalinyar waan arkayaa ee raggii may mar walba waxa u horkaca ummadda oo u horseeda waa hooyo ayaa mar walba diidida iyada weeyaan ta inanteedu guriga dibloomada ula dhex fadhiyaan ee loo ooyayaan iyada weeyaan ta inanteedu shaqada ay joogaan ay ku ciileeyeen ee lagu cadaabayo waa iyaga weeyaan waa iyada taxabada baastada lagu qaaliyeeyay waa iyada tamar waliba gunta reerka og waa iyada hooyoy u tur wiilkaaga hooyoy u tur gabadhaada aayahooga ha ka aamusin inta aad u gilgilan karto u gilgilo sida ay noogu soo dhiibeen hooyooyinkeennii soo halgamay inaan annaguna ugu sii dhiibno kartida iyo raganimada ubadkeennu waa lagama maarmaan waa muqaddas Djibouti way jiri xumaantuna way tagi Djibouti way jiri xumaantuna